وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق وجمعا بين الفعل الباطل واعتقاده حقا وهذا أعظم الجنايا ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاده أنها معصية فهذا أقرب للسلامة وأرجى للرجوع كما قاله السعدي في تفسيره سداسا مركا متسلمون اليوم oo aan ula jeedo shawahaadda uun dhigaysa oo ah kuwa ay zanaadiiqadu shiikyada u yihiine aanay tooba u lahayn oo wax laga aqbalayo aanay jirin sababtuna waddadii ay ku soo laaban lahaayeenba ma taagnaba mar kale aan u laabana mamarkii hanfer wuxuu ku qortay oo qoray oo Wikipedia meel kaleba iska dhaaf ugu tagi which is to gain credibility by being on the surface morally strict taasoo uu helay aaminaad ka dhigtay qorshihiisa inuu sagxadda sare soo saaro si niyo adeeg ah maadaama uu helay nin uu ku shaqaysan karo for this purpose he enlisted a gullible hard-headed young Iraqi in Basra naming Muhammad bin Abdul Wahhab ujeedadaas darteed wuxuu qortay mid dhalinyaro ah oo la siri karo oo salfudeed soo sufaahatul axlaami sidii uu rasuulkii sii sheegay ma u cadda khawaarij zaban ee joogto maangaabnimo salfudeed waa sifo caddaynaysa rasuulnimada nabiyuna Muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh oo kol kasta waad ku arkaysaa haddaba zabankan kuwa na wareershay waa kuwa ay shiikhyo u yihiin hanfer oo mustashriq jaajuus ingiriis ahaa iyo maxamedu najdi oo maariq ah hanfer corruptus and flatus wuxuu musuq maasuqay oo uu khalday kana badbadiyey wahaab ina wahaab cunugii ahaa fudeedkii iyo marnaantii u saaxiibka ahaa until the man is willing to found his own sect ilaa uuba ka dhaadhiciyeyba inuuba helayba madhab cusub oo isagu uu abuuranayo haddaba maxamedu najdi wuxuu abuuray madhabkiisa maxay yihiin waa caqiidatu tathliith trinity oo lagu saleeyay gaalaysiinta muslimiinta taasoo baanaynaysa in muslimiinta la laayo maalintaas ilaa maantadan la joogo fikirka xagjirnimada ee baaba'a iyo burburinta halkaas ayay ka socotaa waxaana abuuray hanfer isweydiintusu waxay tahay zandiiqani muxuu ku keenay inuu taariikhda ka been sheego oo xanaabilo iyo imaamkooda u tiiriyo xagjirnimada isha noo yeeshay waa iska caddaha oo sifooyinkii aanu soo sheegnay ee zanaadiqada dib u meleecso sifada afaraad ee aad ku darsato sifaadkii saddexda ahaa ee aad kala kulmi iyana waxay tahay ibaaxatul fisqi oo dhan oo kuwa noo joogahay xitaa waxaa agtooda caadi ka ah makhnuudnimo ka gudub xanaabiladii zabankiisii nooleed maxay ka yidhaahdeen maxamedu najdi mufti alxanaabila fii makka wuxuuba leeyahay kutub dhan oo saxb alwaabili calaa daraa'ix alxanaabila la yidhaahdo wuxuuna ku leeyahay ana moxamed bin cabdiwahaab huwa saaxibu dacwad allatii intasharat shuruurahaa fi laafaaqi sharteeda ee jihooyinka oo dhanba ee ku faaftay dakara maa aharahu waalidahu washaqiiqah baynamaa dakara shuruurihi wa adaafa waana xuseen kana digeen wuxuuna sii raaciyey
لم يتظاهر محمد بن عبد الوهاب بالدعوة إلا بعد موت والديه به مركو انت أيوب الجهر بدعوة ديس أخاه سليمان بن العبد رد عليه وحون اللي هيبة رسالة أو فصل الخطاب في رد على محمد بن عبد الوهاب لإرادة أو ضدي أسجى إيه ولكن دحمرت أو كجور رمش شيخ أحمد زين الدحلاني أو كمدها مفتدي حرمين كي إسنا وحولي هاي كتب أو تاريخ أو هلايو أو بلغة فصل فتنة الوهابية وحنا كورليا كتب كيساسي كان في ابتداء أمري في طلبة العلم في المدينة المنورة مركو طالب العلم أها أبا في النادي صلى أركبه على صانع ساكنها أفضل الصلاة والسلام عليه وكان أبوه رجلا صالحا من أهل العلم وكذا أخوه شيخ سليمان وكان أبوه وأخوه ومشايخه يتفرسون فيه أنه سيكون منه زيغ والضلال ujeeddadaydu ma ahan ka hadalkan maxamed bin cabdiwahaabe ee zandiiqani xanaabilo iyo imaamu ahlu sunna waljamaaca muxuu ugu saarin waxa raadkoodu qoyan yahay oo sidan u cad oo xataa xanaabiladii ku casriga ahayd ay ka bari noqdeen oo taariikhda lagu hayo in madiinatu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam laga eryey oo baqdaad laga eryey oo meel kasta oo lagu fahmo laga eryi jiray oo xataa walaalkii iyo aabbihii beri ka noqdeen oo xitaa ay radiyeen kana digeen baadidiisa oo labadooduba ahaayeen culamaa'ul xanaabila maye boohinta orgiga ka weyn oo zandiiqani qayb buu ka yahay kuwa lagu shaqaysto waxaana halkan ku soo bandhigaynaa erayga uu cinwaanka ka dhigtay ee ah mushkilatul xanaabila iyo waxa uu qulaabinayo dhan meesha uu ka keenay ee looga soo koobiyeeyey oo wuxuu baaris cilmiyeed uu ku ogaaday maahan oo wuxuu af soomaali noogu akhriyey maqaalkan oo zandiiq carbeed leeyahay zandiiq carbeed maqaalkii buu noo akhriyey وكان ابن أبي قتيلة ذم أصحاب الحديث هيا بقوله أنهم قوم سوء قام أحمد هيا بن حنبل وهو يقول زنديق هالكاس يكو قرنت طبقات الحنابلة وحو حقيقي وبارس كسهلي أو بحث كذب وكسو قاعدين أحمد بن حنبل حتى وسيدان يجري ما أهان أيوة مقال كاس هاي قال أحمد سبحان الله أنهاك عن مسلم تسألني عن كافر طبقات الحنابلة وهالكاس أقو قرنت marka wax un ii sheeg maqaal oo aan la hubin saxiixnimadeeda iska soo qaado waa caqliga aan shaqayn ee zanaadiqada hadda jirta oo marka aan leeyahay zanaadiqada hadda jirtaahi kuma caqli iyo cilmi dhamma kuwii hore tana caddaynaysa oo wax ay soo qaadanayaan xataa lama socdaan meesha ay ka soo jeedaan iyo saxiixnimadooda iyo ma runa ma beena ma xataa haddii kelmadan u yiri kelmadan ma saxa ma kelmad cilmiyeysana ma xaqa absolutely ma la kala caddayn karo awoodeedna ma laha walan yujahid salafi caqlahu بالتفكير والتحليل والنقد والتمييز وإعادة النظر كلمات سقاركون إرادة أو سيدة أو غاركس وحول لي من ما هنا وحول كوبية أو هل كان أو كآخرنا هاي وحاسي وعجائب بدن إن حتى الزنديق عربيات وقرأ على رأس ابن حنبل مركوية إمام أهل السنة والجماعة أو بصير رأي أو إمام أهل السنة والجماعة إنه أها وقرأ haddana waa xaqirayaan haddana kusii been abuuranayaan waa cajaa'ibta la arkay ee zamanku dhaliyey intaa istilaabta aan saaray waa in ay kaga been sheegayaan sida uu ku noqday imaamu ahlu sunna waljamaaca balse aan sharxi doono fusuusha dambe oo ku sharxi doono cajaa'ibta kale la yaab kale waxay tahay
أن بشر مريسي وأصحابه لا يدرون أي هي ما يعبدون السنة الويرة هي وزعمهم أن من قال القرآن مخلوق فهو يعبد الصنم أي إرجع محاكم جبل ما أوجا إرجع وحوي هاي يحق نمديسة بعض المياه أبسولوت وأن مش مقال لسه قاتون أو أفصومال نقول ترجمة وحاس يقول عجائب بلنات مركي يرادين أحمد بن